بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا walaalyaal casharkeena imtixaanaha ahaa ee noo socday ee ku saabsanaa maamulka iyo maareynta shirkadaha ganacsiga ama shirkad yar ha ahaato ama shirkad weyn ha ahaato intaba ayaa maanta ka hadlaynaa insha Allah haddii la yiraahdo shaqooyinka maamulka waxaa ka mid ahaa qorshaha marka waxa u qaybinay ilaa 4 qaybood afartiisii qaybood ayaan soo kala fasirnay oo anaga af Soomaali si fiican u faahfaahinay maanta waxaan qaadanaynaa kii ugu dambeeyay oo ahaa qorshaha waqtiga fog ayaan qaadanaynaa waa strategic management ama strategical planning waa maxay qorshaha waqtiga fog waxaan qaadanaynaa insha Allah horta muxuu yahay marka koowaad ayaan isla sheegaynaa qorshaha waqtiga fog ama qorshe waqti dheer waa qorshe aad muhiim u ah waxaana lagu qeexaa dejinta qorshooyinka waqtiga fog ee leedahay shirkadda ama urur qorshaha waqtiga fog marka waa qorshe muddo fog yani adduunka la isku raacsana hadda hal nooc oo waqtiga fog xilligaas la dhahaa la isku raacsana laakiin inta badan dadka adduunka jooga wixii hal sano ka badan waxa la yiraahdaa qorshe waqti fog waaye marka walkii ahaa saasay noqonaysaa marka waa qorshe kulay waqti dheer ah oo inta badan istiraatiijiyada shirkadda iyo higsiga shirkadda iyo missionka shirkadda waxay u jirto iyo waxaas oo dhan ka hadla ayaa la yiraahdaa qorshaha waqtiga fog ayaa la yiraahdaa maxaa yani qorshaha waqtiga fog maxaa looga jeedaa badanaa qorshahan waxa looga jeedaa 5 sano ama 4 sano ama 3 sano ama hal sano barka soo socda wixii dhici lahaa in la sii odroso oo laga sii fakaro oo go'aan hadhow la qaada lahaa sidaas haday timaado maxaa dhici kara iyo sanadkan waxaan rabnaa qorshaha saleska in halkaas gaarsiino sanadkan waxaan rabnaa sanadka shaqaalaha waaye inaan xuquuqda shaqaalaha si loo deji lahaa iyo xalaas aan dejino shaqaalaha sida si fiican looga faa'iideysan karaa inaan dejino sanadkan waa sanadkii noocaas ahaa marka maxaan sameynaa ayay noqonaysaa waxaa la yiraahdaa marka sano meeqa sano ayaa la dejiyaa qorshaha noocaana meeqa sano ayaa la dejiyaa waxa inta badan ugu yaraan 5 sano inuu yahay ayaa la sheegaa laakiin inta badan dadka hal sano wixii ka badan qorshe waqti dheer ayaa la iskaga yaqaanaa qaasatan Afrika laakiin adduunyadaas kale waxaa laga yaabaa qorshaha waqtiga fog inay u yaqaanaan 100 sano oo soo socda 50 sano oo soo socda 30 sano oo soo socda inay u yaqaanaan ayaa laga yaabaa laakiin annaga hadda tusaale ahaan meesha oo wax ku fahmayno 5 sano oo soo socota shirkaddan intay rabtaa inay tagto qorshe noocaas waaye ay maamulka sare dejiyaan waaye maxaa looga baahan yahay marka qofka ama maamulka dejinaya istiraatiijiyada ama qorshaha waqtiga fog maxaa looga baahan yahay laba shay ayaa looga baahan yahay waxa aad iyo aad looga baahan yahay arrimaha gudaha shirkadda arrimaha gudaheeda ah inuu si fiican loo analyze gareeyo tusaale ahaan waxaa rabtaa qorshe weyn oo 5 sano soo socoto inaad gaarto rabtaa bal horta gudahaaga isfiir marka shaqaalaha ma xanaaqsan yihiin tan offer shaqaalaha ma badan yahay markaas shaqaaluhu ma ka tagaan ma soo galaan waxaas oo dhan way waxa waaye saameyn ku yeelanayaan marka waxa u darasaysaa gudahaaga dhan horta bar si fiican u fiiri waxyaaga si fiican kugu dhisan yahay nidaamkaaga hoose ma ku saxsan yahay in hadaarto ina qorsheyso lacag kugu filan ma haysataa waxaas oo dhan waaye waxa kale oo jira arrimaha dibaddana waa muhiim arrimaha dibadda oo kale maxaa noqon kara wax shirkadda gudaheeda ka baxsan in waxaysa shirkaddu controlin way noqon karaan oo shirkadda maxay tusaale ahaan dawladda waxay soo rogtay wax aad wax ka qaban karin oo ay laba mid tahay inaad raacdo iyo inaad burburto ay laba mid tahay marka
iyo dhammaan wax kasta oo shaqada waqtiga fog qorshaha waqtiga fog saameynaya ayagana loo baahan inaad ka fikirto waxaan rabaa markaa qorshihii ama sida iskula shaqeeyaan inaan wax yar idinkaga soo koobo qorshaha operationalka waa qorshe waqti gaaban wuxuu u shaqeeyaa tactical plan u shaqeeyaa qorshe waqtiga dhexe wuxuu u shaqeeyaa strategic planka markii uu fiicnaado qorshaha tacticalka ah ayuu fiicnaan karaa tacticalku markii oo xumaadana wuxuu ka xun yahay operational planka ayuu ka xun yahay marka waa isku xiran yihiin markasta oo operational plan fiican oo jiro iyo shaqada si loo qaban lahaa qaabkaas ay diyaarsan tahay tactical plan qorshe dhexe aad u fiicnaana qorshaha strategic waqtiga fog markaasna uu si fiicnaana isagana contingency planna waa qorshihii aan ugu talagalnay haddii arrintan ay shaqeeyso maxaan ku bedeleynaa qorshihii ahaa waaye aan ugu talagalnay fadlan buug oo dhameystiran hadaa u baahan tahay nagala soo xiriir numberkaas waa mahadsantiin salaamu calaykum hadda waxaa noo dhamaaday qaybtii qorshaha 4 nooc oo qorshaha ayaa noo dhamaaday insha Allah waxaan u gudbi doonaa casharka ku xiga